السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo sideetan sideetan iyo lixdii sideetan iyo lixdii waxay ahayd mid aniga igu murugo badan hata khaasatan aniga waxaa nagala soo celiyey ruushka tababarka xagga mataqaanaa hawada ama air course waxa la yidhaha air course waxaan joognay 16 bilood oo u dhiganta sanad iyo 4 bilood Moscow wax kale nala barayn waxaan nala barayay qaybta raadeerka ama hawada difaaca waxaan jecelahay marka arrinta igu murugada badan inaan soo afjaro oo aan soo dedejiyo kadib xagga markaa ka nimid ayaa waxaa la qaaday imtixaan guud ciidanka laga qaaday waxaan ahayn marka 60 dhalinyaro ah oo markaasi wax 20 gaari ayna jirin marka bini aadamku qof walba waxaan jeclaan lahaa inuu isyasin aniga dugsi hoose dhexe xamarooyinaan kusoo bartay raayo ugaasna dugsi dhexe sare anagoo macnaha diyaar u ah ay qabtan ugu dhacday marka sareba aniga ma gaarin haddana ciidanka wuxuu ahay ciidan waxbarashadiisu iyo howlgalkiisu oo isku midaysan yahay adigoo saakay mataqaanaa iskoolka aaday 6 saac wixii ka dambeeyo xaradaad ku fayle waxaa dhacday marka waxaa la galay seminaarkii waxaan ka galay qaybta afraad ayaan ka galay saddexaa iga sarreysay afraad ayaan galay anoo macnaha in liitan aan iska soo qaaday ingilishkana aad u aqaanay markaas tenniska sideedad ayaan baranayay qoladii ruushka ahayd ayaa waxay yidhahdeen wuxuu galay haddana beremo anigu siday ku dhacday maqal anigaa beremo galay ilaahay wuxuu qadaray marka raadeerka in laygu baroobeeyo ilaan berrina waxaa weerar ah diyaaradihii xabashida berrina waxaa weerar ah diyaaradihii xabashida warranka maayo raadeerka wuxuu leeyahay marka qayb operator ah oo dhagaha aad gashanaysid oo maqalkaaga iyo muuqaalkaaga dhammaan difaaca cirka u qaybinayso anu marka isma lahayn bug iyo hasaa bilaabanayso diyaaradaha hawada soo galay diyaaradaha marka targetkooda ama ciwaankooda waa naqaanaa haddii ay yihiin shibil oo civilian ay yihiin iyo hadday military yihiin waxaa ii soo baxday marka diyaarad military inay tahay waan tabiyey inta kilomitir ii jirtaan tabiyey intaada macnaha 5 iyo 6 erigaada oo gaarin oo ku dul saaran tahay daqiiqadan waxay jari kartaa wax aan yarayn oo adiga 50 kilomitir ka yar ka badan kadib waxaa dhacday doqoynta waxay ku bilowday baladweyne doqoyntaas maalintaas waxaa ku dhintay halin oo keliya oo shacba gabarna waxay ka go'day lugta ayadana waxaa lagu soo riday meel mataqaanaa cabuud waa agteeda ah ayaa lagu soo riday waxaa igu yaab badneed marka sidii aan u dadaalay soomaalida dhan ay u dadaashay ilaahayna noo garab galay diyaaradu labay ahaayeen mid kilinkii shanaad ay ku dhacday waa gaari weyne tanna waxaa laga keenay niman caddaana oo naasa leh waa mid igu yaabka badan kuuba naas dheeraa la yidhaha tintoo u tidcantay waa naagaa loo malayna anigii marka hagaayay taarka fogaan intaasoo fiit hawada ah jaha intaas diyaarada waa badnaayeen hal xabaa 10 xaba kusoo daba gabatay waxaa dhihi jiray caashawaal marka ayagoo saf ku jiray haddana sii kala baxeen intaas waa tabanaya hal mar xataa ma wareerin sigaar ma aqoonin waxaasoo dhan ma aqoonin jaad ma aqoonin waxaan aqaanay male xataa barastamool ma aqoonin ilaahay wuxuu qadaray subaxdii waxaa laygula soo orday xaanshiya inta layga saaray oo la leeyahay waa darajo أنا مركز أنت إسكافي قال مال إسكافي عيال إسكافي وهذا على مركز كوبانكي دي أرض إلى صوت علي عيال أنا الماء بندوين كده هنا عن ماذا ناقو كبعد دتك أنت قبل صراحة ناقان محين حالي ناقو ما أنا وابو كوبان وارك ناس اللي انتمي لي وحاسو لن يعني سواق قبلنا بعد مدة مركز أضياش هذا دتك أنا أوير هاي قرنك usoo burburay ama wax usoo qabtay hadalkooda iska badaayo kuwa hadda jooga xabba loo haynba taasna waa calab darro marka waxaan dhihi lahaa aan issoo noolayna soomaaliyey kenya hoose iyo kii dalka usoo burburay iyo kii lugta usoo beeray kii dhintay waaba dhintay aan israadino dadka waxa laysu qabto oo maaragtay meelaha laisku sheego waxaa igu caawil xumo badan marka 2021 hadda ayaan xamar tagay hooyada xanuunsan ayaan geeyey
cisbitaalka martiini raggii siyaad barre dowladdii dhexe u soo burburay ayaa dhooban ilaahay khayr ha siiyo madaxweynihii farmaajo ayaa mar wuxuu u qaybiyey 500 marna waxbuu meel u saaray madaxweynayaashu way isbedeleen haddana waxaan maqlay in laga goostay oo xataa waxay cunaan ay ilaahiin tii kushiinka ay ilaahiin bal fiiri ilaahan kugu dhaari maxay tilmaamaysaa marka dameer duqooyo oo rarka laga furtay mid cusub la soo garay dameer cusub la soo gatay kan waa iska dheerayna marka guriga bartay waa la sii celiya war dameerkaasi soo xaq kugu malaha dameerkaasi muxuu kugu leeyahay xaq waayo marka anaga xaqunaaska markaan badsano saana ahayna san juk iyo jac iyo biibaxo iyo dhibaato iyo duufaan iyo rifti faali iyo kaano haloo diyaar garow ani waxaan leeyahay marka hadda anigaan 58 sano jiro ayaa u yar raggii dowladdii dhexe wax u soo qabtay maanta haddii raadaar la keeno kolay ruushka mar daba noo hagar bixi maayo alaabtii hore noo keenay ma noo keenayo ilmaha ruushka waa ku caasinay raadaarka 30ka 12ka tareecaaska mataqaanaa 12ka uu saaran yahay oo maxaan ku yiraahdaa ciidamada lugta la howl galo maxaa saaran raadaar baa saaran 12 baa leeyahay raadaar baa saaran 12ka 30ka lama qaado 30ka waa weyn yahay laba garbado oo macnaha kala duwan ayuu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa fadhiga 1500 oo ka qabtaa 30ka midkan ifitriga ayuu raacaa baawur tareecaas la yiraahdo ayuu saaran yahay ifitriga ayuu la lugeeyaa waxa waardiyay marka 4 BM kaligiis 4 BM ayaa waardiyso 6 suugna dhinacaya ka jirta difaac looguma tiri gelin in la gubo raadaarkaasi raadaarka marka maxaa lagu gubaa diyaarada asaa hor arkaayo oo ku soo tabina saacad wareegayso leeyahay marka waxaan leeyahay marka oo aan ugu baaqayaa walaalaha Soomaali ilaa ay hadda aniga lambarkayga idinma siin dadka qaarna way is weydiiyaan aniga Soomaali aan ahay wax ka duwan idin sheegi maayo dadka yaqaan waa yaqaan ciidamada sida badan waa yaqaanin ee hadda soo haray dalka iyo dibadaha kulli comment laga soo qoraa xadi ka codsaa marka commentigiina waa fiiri doonaa insha Allah qof walbana sidii uu soo horeeyay ayaan u kala hormarin doonaa wabillahi tawfiiq wax alaal waxaad rabtaa waa iga soo codsan kartaa halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan